haddana waa looga sii daray dhulga aasna haddii aan laga hortegin dooxada nugaaleed bay imaanayaan marka farintaydu waxa weeye cid kastoo arrintaa wax ka qaban kardha inay isu taagto waxna ka qabato aad baad mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillahi raxmaan haddana waxaan kusoo dhaweynayaa suu kelmadiisa u qaato gudoomiyaha gobolka nugaal cabdisalaam الرحمن سنتر عبد الرحمن محمد فراوله وزيرك وزارة deegaanka iyo beeraha iyo waraabka iyo cimilada duqa degmada Garowe duqa degmada Eyl aqoon-yahanada beergalka kale dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladdan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh أنت كذب وحوا هذا البلد تبغى إنه لهم ما فينا رنتان وربحنت هذا عكور بعيد وقد ما قروا اللي ماشاسي روب وكبروا من يحل جاي قدام مين يصير واحد على أنت أصوح ودي بقول نقول يور بنت هذا واحد بعيد وقد ما قروا وقد ما أيد هالمان هذا الكمتشرة warbixintaas oo guud ahaan delegationkii iyaguna ay halkan ka tagay ay ku soo arkeen oo ugu horeeyay oo wasiirka deegaanka iyo senatarku ay hogaaminayeen iyaguna si dhiibli ay u soo arkeen meesha sida wax uga jiraan iyo wixii ka jira haatanna ay keeneen filimkan caawa aan meesha ku daawanaynay oo ay ka soo duubeen sida markii hore waxa ahaayeen iyo sida hadda ay wax noqdeen intaba dhammaanna caawa halkan laga wada fiirsaday hadalka tiradiisa badan badin mayo anugu kelmadaydu waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirada iyo senatarka hadee iyaga meeshiina tagay wixii international community ama dawladda ama shacabka ama dadweynaha ama wixii kale oo islaam oo gacan ka geysan kara iyaga kelmadooda hadii alla idmo dardaaranka aan siinayaa hadalka intaasan kaga baxay بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عاوة وحين هلك السني وحويه degmada ay duufaantii Gowaan loo bixiyay todobadii bisha ku dhifatay degmada ay magaalada iyo nawaaxigeeda ku dhifatay oo adduunka oo dhan laga naadinayo laga sheegayo meesha ku soo aadanta inay tahay halkaas dawladana waa naadisay dawladda dhexe waa naadisay national community waa naadiyeen maashaas xoogeedii wuxuu ku dhacay halkaas kasoo roobab badan ay deen oo كلنا نقدر أي وضع قبتين أو شغله أو غير بدل وحياله أو كم يتحققون تدفون حتى لكن دوفان تحوجات يحصل بيك بأي هذا النصيب كذا يكون نقطي هنا ينقول متكيه رجالين وقبل الآن نشي والجاري وبابور ينقلي كريم متكيه بورين وهذا يكون كده عادات كان أغون وكنت على نقل بالي وأدرني السنة أنت قبل ويسكو هيو إلى تقدر إلى السناق إلى صول ينقال مش بدك الجلوة ليش كويال مجال سيكتاو مجال أين وحرنتي دجمة أحيانا تاريخ دمين كل عليا وحرنتي دجمة أين دجمة دي لو يقين النقال
markii xorriyadda la qaatay loo yeelin magaalatan garowga degmo noqon garowgeedaa laga xukumay ilaa buurtinle ilaa bayle iyo qardho inta meelaha kala barkooda marsay ahaan jidhay xoolaha ka dhoofaan saacad ku soo degto marsooyinka dabiiciga intaan degada la samayn soomaaliya degada ay lahayn anugu halkaasaan garaantaydii ka bilaabay waxbarasho hoose iyo barashada diinta qur-aanka iyo kaloo raaco tafsiirka iyo halkaasaan ka bilaabay magaalo barwaaqaa bay ahayd ilaa mudug baa ku xirray xoolaha laga dhoofin jiray waxaa u badnaa laga dhoofin jiray waxa xoolaha ka yimaado subag iyo harag iyo xoolo nool waxaasaa laga dhoofin jiray badeecadda laga soo degi jiray doonyaha imaan jiray labadeeda qaybood qaybta hoose sidaad ogtihiin dalkan Soomaaliya magaalooyinkeeda asaasiga ah ugu horeeyay xeebay ka bilaabmay min Zaylac ka soo bilow ilaa waxa uu geysaa Kismaayo iyo Kashishe magaalooyinka xeebaha baa magaalooyinka ugu horeeyay in laanka mardama la aaday magaalooyin noqdeen marka magaalo qadiimi weeye taariikhiyan waxa runtii koowaad oo dhaqdhaqaaqii xorriyadoonka loogu magac daray Soomaaliya markii ay soo galayeen reer galbeedku Scramble for Africa markay soo galayeen dhaqdhaqaaqii u horeeyay xaruntiisa ugu horeeyay oo daartaas adarkiisa caanka ay ka dhisan tahay oo magaca magaalada qaybtada kore iyo qaybta iyo daarta isku magacayeen Daawud la yiraahdo haddaan magaalada haddaadan markii hore aqoon say ahayd markii dambena intay nabadda qabtay beeruhu aan inaan hadda laga eed sheeganayo livelihoodkii dadku ku noolaa ay say u dhisnaayeen aadan aqoon ee hadda intaa tagtay dhadhaafta hadda muuqanaysa dhagax dadku dhadhaaf moodaya ama manaya waa dhagaxa isaysto garoway markii hadda dhaxyada loo soo jiibinayo meeshaan rabaabli waxa ka sokeeya dhagax iska safan oo la jabinayo hadda u muuqda meeshii ninka dhex doonaya halkaas waxa malaya dhagax ku yeelay maanta nin dhagax u yeel qaba dhagaxaas dushiisa guriyana ka dhisnaayeen beerana ka dhisnaayeen meesha aan taagnaaday oo ninka cas oo meesha taagnaa in asalkiisii hore yamani ahaa awowgiis oo ahaa awowgii labaad baan malayno ah oo dhisay daarta Daawad 1905 isaguna halkaas ka samaystay beer iyo guri aad u ballaaran oo isku dhex yaala anaga wadada mari jirnay markaan biyaha ilaha oo lagu dabaalan karo u soconno markaan meesha istaagay waan la yaabay ninka kale oo shaarka cad oo ag taagnaana waa dadkii asali magaalada ahaa oo ka yimid England hanti bay ku lahaayeen beer bay ku lahaayeen dadka yaqaan baa inay sheegay Cabdisamed Cali Xush baa la yiraahdaa waa dadkii dhalinyarada ahayd oo iga yaraa xogaa iga yaraa halkaas uga soo aaday bal inuu hantidoodii wixii ka haray iyo dadkoodii wixii kaga haray meesha uu yimaado England buu ka yimid marka halkaas waxa cidaan arag loogama sheekayn karo wixii dhaabtaas la sawiraayo waa beero ay ahaayeen hay'adaha anigu aan aad uga samri waay waxa ka mid ah dhirta la yiraahdo dhuurta oo laga dhisto carshaanta oo danyartoo dhan ku noolay oo beeraha looga dhigin jiray fence ama wareega looga dhisi jiray oo wax walba loo intifaaco oo xaabada lagu shito oo magaalada biday oo kale ay muxuu ahaay wax ku karsan jirtay oo forest ahaan biday ugu yeelay meeshii ku yeeleen hadii sawirka aad u fiirsataan qoladina meediyada dib aan leeyahay ku ceshee say ahaan jireen iyo hadda khoori bay noqotay deked ay degada laga dhigaa la oran degada waa iska samaysantayba meesha badda ay furantay hadda kalluumaysi ka samay halka waxa u baahan tahay in xoogaa sibir la dhigo kaliya u baahan wax kale oo baahanaba laakiin haddii ay soo celinaya wasaaradii baa maanta caawa joogta deegaanka iyo beeraha labada meelood khuseysay iyo bay'adda ama environmentiga hadde in laga sii gaashaanto marka la soo wado mooye hawle waa haysataa oo malaya Ismaaciil Gamadid caaw beerahaas oo dhan maanta way iswada taagneen maalin baan ka horeeyay waxaan leeyahay meesha ciid uga keeni lahayd dadka aan wax kale ma yaqaanin mana ka tagayaan meesha ciid uga keeni lahayd hawdkan ciid waa laga helayaa ciid waa laga beeri karaa baa la yiraahdaa haddii aqoon-yahanada la tashaday ilaa 3 mitir baa dhulkaas u qodmay dadkii beerahaas iyo dhulka guryo uga dhisnaayeen oo aan la sheekaysanay ilaa 3 mitir baa laga qaado dhagaxa soo muujiyay marka 3 mitir gaarsiin kari ma yahay 20 senti oo ciid hadduu soo dhigo dhirti waa weyn ciidan meel laga sheelay mesela laakiin waxaan la yiraahdaa cash crop-ka waa laga beeran karaa livelihood-ka in la soo celiyo loo baahan magaaladan waxay caan kale ku ahayd dalxiiska magaalada dalxiis oo badii iyo beerihii iyo qararkaas aad aragteen oo quruxda miirana iyo
togaga kusoo dhaca oo haddii ciddii aadaysa iyo taariikhdii isticmaalkii uga tegay iyo tii daraawiishtay wixii oo dhan baa yaalla marka sidii dalxiisna waagi hore dalxiiska waxaan ku ogeyn wasaaradda deegaanka haddii wasaaradda dalxiiska waa u yeeri lahayn caawa haddii aan moodayno inuu dalxiiska wasaaradda raacsanayn dee qolo walba qaybtay ku lahayd ha ka qaadato dadweynuhuna ha ka qayb qaato anigu abiilkan yeerinaya waxa weeyaan dadkan hay-adahi waxay keeni jireen hal yaan la oran keliya waxaa jira dad xarfaan ah oo dadka maanta wax ka soo qaada yaqaan dadkan in loo gurmaday u baahan yihiin waa faysan yihiin hadda bil waxaa ka dhiman baan u malinayaa maanta 4 bay ahayd 8 beri baa ka dhiman waxaa ka bixi 4 maalmood oo kale ka dhigan maalinta roob ku daay 3 beri ma waxay tahay adigu waa bil 3 beri la baa dadkaas cidla fadhiya dadka dusha saaran waxyaalaha la yaaban yahay anigu hadda aan gefnay oo aan ka xumahay hadda ragga ku haray meesha wasiirka waxaan ka codsanayaa inuu u diro ay soo sawiraan shaqada ay ka qabteen labada magaalo dhexdooda aan soo maray anagu dhinaca hawdka waa go'an yahay limaba aanan aadin dhinacan kalena waa ka degnayo xogaa ciriir buu ahaa laakiin bacaad wadada fariisto ee kala jeexeen oo ay gacan ku kala jeexeen 13 beri oo dadka la tirinayo qofkee maqan oo naaga uur leh ay wax ka qodayeen oo halka badeel ay ka soo doonteen oo ay dadkaas mintidiin dad isku tashaday weey dadkaas loo gurmado gacan la siiyo ilaahay waxaan uga rajaynaynaa ilaahay inuu cawl celiyo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay deeqdiisa isaga deeqsiya cid uu ka soo qaado iyo wuxuu siisa toos u siiyo ilaahay inuu dadkaas wax u taro oo calayo ilaahay uga rajaynaynaa ka baryaynaa dawladana waxaan rajaynaynaa inuu wasiirka iyo wasaaraddiisa inay hawshaas wixii kaga aad ka qabtaan annana gacan baan siinaynaa wixii tabartaya waan salaamantii salaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم marka hore ilaahay baa mahad iska leh inaynu caawa halka isugu dhimaadno oo inagoo caafimaad qabna ayna halka inagu kala siiyo marka labaadna waxaan uga mahad celinayaa ciddii soo qabanqaabisay iyo wasiirintii ugu horeeyo inaan fadhigan ama kulankan caawa aynu yeelano waxaan marka hore salaamayaa senator cabdiraxmaan gudoomiyaha gobolka cabdisalaam maayirka dugaal gobolka degmada nugaal garowe iyo gudoomiyaha degmada eyl iyo aqoon-yahanada culimada iyo waxgaradka halka fadhiya iyo dhalinyaradaba salaan ka bacdi sida aad ku arkayseen warbixinta ama hadallada madaxdii ama odayaashii iga horreeyey waxaan doonayaa in yar inaan taabto backgroundka ama muhiimadda hawshaan u fadhidaa say u bilaabatay iyo waxa ka soo baxay sidaad la socotaan bishii 6 December 7 iyo 8 ilaa 12 waxaa xeebaha Puntland la sheegay inay ku soo wajahan tahay dabaylo wata oo Bowen cyclone la yiraahdo iyaga oo xooggeedu ama centerkeedu uu yahay deegaanada ay inuu ku soo beegan yahay marka la soo dhaafana uu suuj iyo garmaal iyo inta la agbaala ay xooggeedu tahay iyo iyada oo dacaladeeduna ay gobolka Gadefu ay gaarayaan waxaa kaloo la sheegayay in markii hore lagu qiyaasay inay midug gaadho oo garaacad iyo halka bas wanaag garaacad iyo eriyada ilaahay uma duwin oo ma gaadhin laakiin sidii loo qiyaasay waxay ku dhacday inay ka bilaabato oo xooggeedu halka ka bilaabo ilaa Gadefu ilaa Laas Hore uu gaadhay arrintaas markay dhacday waxaa abuurmay xaalad degdeg ah oo gobolku galay oo dhibaatadii ay roobkaas keeneen iyada oo runtii dhinaca kalena barwaaqo iyo roobab ay keentay dabayshaasu ama cyclone-kaas uu keenay haddana inuu keenay xaalad
degdega taas oo ugu horeyso gobolka Gaardafuu oo roob ka horreeyay ay xidheen wadooyinkii in iyana ay sii baabiyeen oo meel loo maro la waayay in ay xeebaha oo dhan ay wada gaadhay in markaa ay noqotay meeshii ugu horreeyay ee godoonta oo communicationkii laga waayey lamana geli kari waayey khasaaraha ay gaadhsina dadku si markiiba degdega aan loo askarin ama loo gaadhin innaga markaa dowlad ahaan markii hawshaasu dhacday waxaanu qabanay kulan degdega sidii dhibaatada ka dhalatay roobka dabaysha wata ay dowladdu u wajihi lahayd waxaanu dowladdu ay qabatay in loo yeelo dhammaan hay-adihii ka howlgelayay Puntland oo ilaa 85 hay-adood yihiin intii timid oo dhowr iyo 60 la yimaadeen in la yidhi gurmad degdeg ayaa loo baahan yahay dhibaatadaas oo dee aan mar la wada qaban karin ee marka hore dadka barakacay ama guryahoodii burbureen ama dabayshu intay cunto la'aanta ee godoomay sidii wax loo gaarsiin lahaa base wanaag markiiba 12 kun oo qoys ayaa la gaarsiiyey muddo 2 wiiga cuntadii markaa la hayay ilaa laasqori ilaa eey waxaa kale oo gurmadka ka soo dhashay in ceelal 24 ceel oo baaba'ay oo beebiskii iyo qaar batooradii ay qaadeen in iyana hay-adihii ay ballan qaadeen sida hay-adda UNICEF inay dayactirto waxaa kale oo markaa ay noqotay stageka marka laga gudbo in loo gudbo stageka labaad oo ah in assessment lagu soo sameeyo si waadixa oo depth ah oo loo gudadegayo dhibaatadu gaadhay dadka ku nool deegaamadaas sida ay u kala daran tahay iyo hantida iyo dhaqaalaha iyo nafta ku baxday waxay markaa ay noqotay markiiba Gaardafuu oo hore go'doon u ahayd in gurmadkii culays la saaray oo dowladdu tagtay oo hay-aduhu tagteen oo diyaarad lagu tagay iyadoo dhul lagu keli karahayn taas oo markaa wixii diyaaradda lagu la geeyey wixii kalena ay hadda lagu gacan hayo waxaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa culimada iyo dadka ganacsatada ah ee Puntland oo garow joogay oo loo sameeyay abiil in Gaardafuu muddooyinkeeda la furo oo runtii aad iyo aad dowladduna ka qayb qaadatay arrimahaas oo dhanna waxaa xidhiidhinayay oo go'aaminayay madaxweyne ku-xigeenka Axmed Cilmi Cismaan iyo madaxweynaha oo marba uu la socodsiinayay hawshu meesha ay marayso arrintaas waan uga mahad celinayaa arrinta eyl maadaama marka aan airport tegin dhulkiina go'doonka ahayd waxay noqotay markaa in la tago oo la soo arko xaaladda eyl iyo sida ay tahay maadaama ay tahay meeshii ay ku dhacday dabayshu ama roobabku ama dhibaatada ugu weyn waxaan aad iyo aad uga xumahay nasiib darro aniga wasiir ahaana inaanan waqti u helin inaan eyl aloo tegay meelo ka sokeeya oo badan oo gobollo badan oo mudug iyo qayb garowe dugaal ka mida aan tegey inaanan jaanis u helin inaan eyl tago waqtigii laga sheekeynayay beeraha iyo dalxiiska ay ahayd hadda aan la kulmay iyada oo aanan garan karin ma meeshan waxay ahaan jirtay ama sida laga sifeynayo taas waa wax aniga nasbaro gaaraya ah laakiin runtii tegistii aan wasaaradda annaga oo dhan iyo senatarka oo laga horreeyay aanu tagnay waxaan ujeedadeedu ay ahayd inaanu bal soo ogaano dhibka iyo culayska uu leeyahay arrinta aan ku soo aragnay waa arrin naxdin leh waa arrin aan qof taga mooyaane ama qof sida uu senatarku sheegay iyo guddoomiyuhu horey u yaqaanay eyl iyo nolosheeda iyo sida ay ahayd iyo maanta sida tahay aan la qiyaasi karin waxaan ku soo aragnay in biyihii xooggoodii sida loo sheegay inay magaaladii wax badan ka bedeleen nolosheedii iyo ecolojigeedii iyo jibografikeedii wax ka bedeleen waxaa abuurmay in ay guryo fara badan ay burburaan oo ay baaba'aan oo ay ciidda raacaan
waxaan aanu soo aragnay oo aan dadku fahansanayn in dhulkii biyaha xoog oo dhaqaaqay in dhulkii dhaqaaq sameeyey dhul gariir maaha laakiin biyaha markay gudaha hoos ka socdaan dhulku dhaqaaq buu sameynaya taasna waxay abuurtay in guryo badan dilaacaan bohola abuurmaan oo maanta dad kale oo ka fogba meeshii beeru ka beeyeen oo kor ah guryihii laga saaray oo aanu indhahaya ku soo aragnay waxaanu soo aragnay sida la sheegay warbixinta 250 beerood oo halkaa ku baaba'ay waxaan yar u taabanayaa aniga oo yani dib u eegaya dadku inay fahmaan biyaha sprinklerska ee ka socday daawad oo biyo joogta ah oo aan goyn waxay abuurtay markii magaalada jambigeeda ama toga dhinaceeda la tegay in biyihii soconayay laga faa'iidaysto oo reer waliba intii ku beegnay uu ka samaysto beer kaasoo la yidhahdo subsistence farming oo ay markaa khudradoodii iyo wixii ay kalayeen muddo ilaa 100 sano iyo ka badanna ay beerahaas ku noolaayeen beerahaasoo mar keenayay bilic iyo qurux iyo dalxiis marna keenayay nafaqada inay la dagaalamaan oo dadku ay nafaqo helaan oo khudrad ay helaan oo ay dhici kartay sida taariikhda lagu sheegay in baradhada ka baxda ama hawlaha ka baxa ay ilaa gobollada kale soo gaari jireen waqtiyada qaar beerahaas markaa ayaa baaba'ay oo ilaa 250 dadkii ku noolaa ee beeraha ka manafacsan jiray marka la isu geeyo qoysaskii iyo dadkii ku noolaa ilaa 600 oo qoys way gaarayaan iyo 150 qoys oo ka shaqeynaya shaqaalaka ama kuwii lahaa ee ka shaqeynayay waa kuwo kale oo u soo camal doontay oo shaqaale ka ahaa oo maanta cilla taagan oo iyagu maadaama ay shaqaale ahaayeen beertiina baaba'day maanta meel aan haysan guryihii baaba'ay oo dadkii ay ka baxeen waxa kale oo cimilada ka mid ahayd webiga ama qowriga dhinaciisa had iyo goor waxaa ka baxda baddana waxaa ka baxa geed la yidhahdo mangrove oo kalluunka iyo waxa badda ku jira ay ku noolaadaan oo ku harsadaan oo galaan oo badda qorigeeda ka baxa togagana dhinaceeda waxaa ka baxa geedka la yidhahdo maxaa duurta oo quruxna leh milixda iyo biyahana u adkaysata oo meesha ay ka baxdo had iyo goor meel biyo leh oo milixle ay tahay taas oo marka qayb ka qaadan jirtay inaan dabaylaha markay kacaan inaan environmentka aan burburin oo dabayshu aanay waxyeelin oo iyagu ay u noqdeen bustayaal bustay u noqotaa dhuurtu tugaga bustay u noqotaa tiina maanta daadkii uu qaaday waxaa abuurtay markii uu abuurmay ciidii sore iyo beertiiba baxeen in dhagax soo baxay dhagaxaas oo maanta aad la garan karin meesha inay beerahaad yihiin kale waxaa abuurtay in bacaad ay keeneen biyihii oo bacaadkii biyaha ay keeneen ay buuro noqdeen oo waddooyinkii xidheen oo runtii aan aada uga mahadnaqayo maamulka degmada iyo dadka reer eyl oo iyagu gacmahooda waddooyinka ku furay oo aan helin wax gacana waxaa muuqatay dhowr hay-adood baa markii ugu horreysay maalmihii hore tegay inkasta aanay gaadhin oo NCF iyo NCA iyo ka mid ahaa NRC iyo hadba iyaga oo OCHA ay xiriirisay laakiin iyagoo assessmentkii ugu horreeyay preliminary-ga ah ee dadka nafaqada u baahan ama cuntada u baahan bay kasoo sameeyeen kii kale ana weli way wadaan oo may soo dhamaystirin annaga markaa wasaarad ahaan laakiinse arrintan waxay ku qototaa inaanu annagu bal soo eegno economically iyo environmentically sida ay wax dhibaatada u taagan tahay taas oo aanu soo aragnay ilaahay ku soo aragnay haddana aanu diyaarinayno assessmentkii oo dhab ah oo qoraalkii oo reportkiina aanu si dhaqsaa u diyaarinayno taas oo aanu la wadaagayno dhammaan hay-adihii puntland ka howlgelayay annaga oo wasaar ahaan ugu wasiir ahaan aan guddoomiyaha gurmadka ee la magacaabay ee arrimaha xiriiriyana aan ka mid ahay wasaarad ahaanna ay haysato oo shaqadii wasaaradda ay tahay oo deegaankii iyo beerihiiba waxaa soo gelaya wasaarado kale oo arrimaha gudaha iyo wasaaradda kalluunka iyo dalxiiska iyo wasaaradda howlaha guud iyo oo iyana ay tahay doorka ay ku leeyihiin inay ka gudbtaan waxaa markaa annaga noo taalla inaanu xiriirino wasaaradahaas la wadaagno xogta hay-adihiina isugu yeedhno oo xogta la wadaagno oo dowlad ahaan iyo hay-adihiiba aanu markaa wixii ku habboonaa ama interfeshonkii loo baahnaa in dadka wax loogu taro inaanu dedejino oo aanu gudbino waxaa garab socdo markaa loo baahan yahay arrinta way ka laxaad badan tahay wax normala oo hay-ada iyo
dowladda iyo ka qabta waa wax ka laxad weyn waxay u baahan tahay technology culus waxay u baahan tahay guryo la dhiso waxay u baahan tahay dadka noloshoodii in la jiheeyo oo beerihii ay yaqaaneenina dib wixii loo qaban karo loo qabto noloshoodana loo bedelo meelo kale oo ay ku noolaan karaan waxaa loo baahanyay dadka kalluumaysatada ah ee dhibaatadu gaadhay in iyana loo sameeyo siday walaashkoodii iyo dooyihii ay ku kalluumaysan jireen iyo dib loo abuuro waxaa dhici karta yani dadka xoolo dhaqatada ah oo iyagu ka sokeeyo dhibaato badan gareero badan baa xoolihii ka dhammaadeen iyana in la eego oo dadkii xoolaha ku baaba'ay iyana dib loo eego si restocking loogu samayn lahaa xoolahoodii arrimahaas oo dhan waxay ka soo baxayaan in assessmentkaas si qoto dheer ama si qiimaysan loo diyaariyo dabeedna ay noqoto anigu aan ku tilmaami karo ail marshal plan in la sameeyo oo arrintaas loo gurmado waxaan markaa abiilkayga kusoo gudbinayaa dadka ganacsatada ah iyo culimada puntland inay arrintaa abiilka ail marshal planka ee lagu habeynayo noloshii dib lagu celinayo inay ka qayb qaataan annaga dowlad ahaanna inaanu doorkaygii qaadano oo wixii lagaga habboon annaga iyo hay-adaha ka howlgalaba annagoo xidhiidhinayna inaanu doorkaygii ka qaadano wasaaradaha kale la wadaagno ayaan halkan xafladan abiilkan aanu ku samaynaynaa waxaanan jecelahay inay arrintaas aanu ka midho dhalno puntland maanta waxay gaadhay inay iyadu isku filaato oo wax qabsato sidii aynu uga gudbanaynay beledweyn sida hadda aynu gurmadka gardafu u gudbanaynay inaynu kana raacino oo ail gurmadkeeda aynu ka qayb qaadano innaga oo ilaahayna tawakalayna innaguna isku tashanayna inta tabarteenna inaan hawshaa wax ka qabano oo dhulkaas aynu doorkeena qaadano waxaan kale oo dadka la wadaagayaa isbeddelka cimilada adduunka isbedelaya wuu ballaadhay 5 bilood waxaa Australia oo dabayl iyo dab ayaa ka taagan intaasoo beerood dadka ka dhintay inaga naga dhiganba dadka Australia ka dhintay ee dabku bilaayay inaga naga dhiman intaasoo bilood baa soo helay oo dhulkii guuraya inana December baan roobinayaa oo dhulkii dhidaya waa wax Ilaahay lagu mahadnaqo isbeddelkaas wuxuu keeni karaa marka in hadda roob kale yimaadaan oo floods kale ay yimaadaan waa wax dhici kara arrimahaas oo dhan inaynu u diyaargarowno sidii aynu adkaysi ugu yeelan lahayn isbeddelka cimilada taana waxaan kaga bixi karaa dowladda iyo shacabkeeda oo wadaaga xogta oo wadaaga resourceka oo wadaaga sidii si wada jir ah la isu kaashan lahaa arrintaas ayaan caawa abiilkan aan kusoo gudbinayaa aan doonayaa inaan ummadda Puntland la wadaago iyo ummadda Soomaaliyeedba in arrinta ail ay tahay arrin culus oo ah meel u baahan in si dab ah loo wajaho intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi